Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelkayga. Maanta waxaan rabaa inaan idinla qaybsado insha Allah taala sida loo sameeyo pasta macaroni oo qudaar leh iyo cheese iyo double cream. Insha Allah. Hi guys, I would like to share with you today macaroni pasta with a vegetable and double cream and cheese. Insha Allah, how to make it. sida loo sameeyo insha Allah aan rabaa inaan maanta aan idin tusiyo sida aniga aan u sameysto. Waxa halkan igu jiro vegetable frozen waaye, qudaar isku dhex jirto waaye, qudaartan isku dhex jirto marka waxay ku imaataa bacdan, qudaarta bacdan ay ku imaataa marka waxa waaye liidalkan ka soo gado qofka yar uu joogo kolay liidalka iyo meelahaas uu ka helaya. Tan bacdan ay ku imaataa, tan waa kan bocor iyo waxa ku jiro broccoli iyo maxaa zeytuun iyo mushroom iyo ku jiro iyo tomato isku jirta waaweyn waa tan galey iyo digir iyo sabool yar yar ku cardunka ah iyo digirtu cardun ah isku jiro insha Allah ama cayriin ah insha Allah. Intaas aan soo sameyn doona maanta hadii Ilaahay idmo. Pastada aan ku shubaya digsiga, waxaan karinayaa pastadan 500 gram nus kiilo waaye. بعد أنا كشوف نص كيلو دي أو half kilo هنقدر يا عصبه just about to test. like half a spoon of salt عصبة أو قادة half كده عمل واي. okay إلا يو 8 دقيقة سكرنا. I'm gonna cook 10 minutes. ما شاء الله pasta diyaar waaye. waan soo miirayaa. I'm gonna drain the macaroni guys. waan soo miiraa insha Allah markaas waxyaabaha kale ku daraa idin tusinaa. okay pastadii waan soo miiray. waxaan ku darayaa qudaartii oo aan karsaneen aan digsiga hoos u dhigayaa. I'm gonna add pasta dan waxaan ku darayaa double cream mujadi aan ku daraa insha Allah taala. Meeshaan qudaartan karis uma baahno, waa iska diyaar, waa huuris leh u baahan tahay in la kariyo uma baahno. okay double cream aan ku darayaa. I'm gonna add double cream down. okay I'm gonna add pasta macaroni down. macaroni aan ku darayaa, then double cream on the top. pastadan aad u macaan tahay asxaabay insha Allah. soo boobeeya so yummy pasta. kabacdi waxaan ku darayaa pastadan, waxaan ku darayaa farmaajadan oo shiidan aan ku daro pastada loogu talagalay. magaceeduna waa kaas grana parmigiano grated aldaha leedalka laga helaa iyadana waan ku daraa iyadana. way dhalaalaysaa ma isku dhegdhegayso waxa waaye way ku dhalaalaysaa meesha. pasta waxay ku soo baxaysaa macaan badan aan laga fuqi karin oo wow ah way ku soo baxaysaa. waxyaraan isku walaaqaya. I'm gonna mix little bit together insha Allah. qudaartii hoos ay taala and the veggies the bottom down there. I'm gonna steam it about like 10 minutes. 10 daqiiqan soo hoorinaya dabkan u gaabinaya at medium high heat. insha Allah low heat aan ku sameynaa insha Allah. waan soo gaabinaya dabka ilaa 10 daqiiqo kale soo hoorinaya markaas insha Allah isku soo noqonaynaa. bacdi dhan kuma shubin. I didn't add all whole back, just I added some. okay and fiirino markaasa saas iskugu dhalaala ma sha Allah tabarakallah. okay qudaartii wixii dhan isku dhex dhaceen oo ma sha Allah wax ka macaan ka caraf badan ma jiraan ku asxaabay. soo baroowe kaligeeda la cuni karaa pastadan suugo uma baahno. this macaroni no needed sauce, they all complete together. It's like this. You will eat just salad whatever you like.
waxaa ku cuni kartaa ansalaato iyo waxa adiga jeceshahay